waxaan dareemi karaa bilowga 21 xamaasadda kugu jirtay inay ahayd mid aad u sareysa oo aad rajaynaysay maleynaysay inaad wax badan qabsato laakiin weli waxaad dareemayaa in bisha shanaad iyadoo la marayo aad wax badan qabsanin oo weli aad ku jirto riyoon oo kaliya oo aad riyoonayso aad leedahay bilaan soo socod ka faa'iideysan doontaa laakiin one thing aan ku sheego casharka nolosha ugu fiican ay bartay aan aaminsanahay natiijada ugu badan ee nolosha lagu keeni karo waxay tahay inaad riyooto kaliya ma aha balse waa inaad riyo ficil ka dambaysiisaa xeerarka ugu fiican ee nolosha aad wax ugu keeni karto waxa kamid ah inaad naftaada ku hareereyso dad tayo leh way dhamaatay bishii April way dhamaatay January February March hadda waxa bilaabanaya May 2021 waxa haray 7 bilood kaliya laba doorasho marka ma 7 bilood riyaad ku jiri Mrs. Bedelaad sameyn ma 7 bilood ma waxaan noqon qofkii shalaad ahayd bas oo isbedeli waxaan noqonaysa qofka cusub u baahan tahay su'aalaha maskaxda weydii waxba ila says dareensiinin waxa u baahan tahay si nolosha natiijada u hesho buug i qalin aad soo qaadato wixii aad qortana berito ay tahay kooda bisha ina ficil ugu bedesho 2020 markuu dhamaadana waxaan rabaa inaan arko adiga oo guulo badan gaaray nolosha isbedel ka sameeyay guul badan ku rajaynayaa Ramadaan